بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إلهي بمهضلة ما أنتو حنصوب بغضي معهد دار السنة وكيالا حافظة دركين لي سوق ليف بكيالا ومعهد دار السنة. معهد كان مانت مركان صوب بوقدي وحياب الله يابله ونفط أيضا أي كه شيء بنكو أركي أولاد أبد ما شاء الله وآد تربية كتبت إسلام كآد برنيسة إيا معلمين قيمة بدن وما شاء الله وان كهلي إيش هيدو way ka heshay laabtayduna way ka heshay marka ilaahay mahadi ha ka gaadho kadibna macallimiinta sharafta leh oo macahadu daari sunnati macallimiinta ka ah iyaguna way mahadsan yihiin sida wanaagsan ee ubadkaasi ay u tarbiyaynayaan oo diinta islaamka ay u barayaan iyo welibana sidoo kale sida wanaagsan ay ii soo dhaweeyeen. marka maadaama meesha aan soo booqday kelmad baan rabaa inaan halkan ka idhaahdo oo ku saabsan wanaagga iyo tarbiyadda. weedhaasi waxay tahay ijcal man yaraaka yadcu liman rabbaak. labadii ku dhashay iyo macallinkaaguba duca u soo jiid. haddii lagu arko adigoo masaajidka daa'imaya oo cibaadada ku sugan oo sifadiisu ay wanaagsan tahay akhlaaqadiisu ay fiican tahay tarbiyadiisu ay fiican tahay dadku waxay ku odhanayaan allow labadii dhashay iyo macallinkii barbaariyeyba dembigiisu dhaaf janno geli. sidaasi darteed ijcal man yaraaka yadcu liman rabbaaka. labadii ku dhashay iyo macallinkaaguba duca u soo jiid. haddii lagu arko adigoo ka xishoonaya oo ka yaqyaqsanaya waxyaabaha liita dadku waxay ku odhanayaan allow labadii dhashay iyo macallinkii barbaariyeyba dembigiisu dhaaf jannadii geli. sidaasi darteed ijcal man yaraaka yadcu liman rabbaak. labadii ku dhashay iyo macallinkaaguba duca u soo jiid. haddii lagu arko adigoo qof bani aadmiyo suuban ah oo dunida u fiican dadka u fiican islaamka u fiican adduunka u fiican ixsaan sameeya dadka dhibaataysan kaalmeeya dadka waxbarasho la-aanta waxbarashada jeclaysiiya qof had iyo jeer samafalka iyo horumarka iyo isku duubnaanta iyo midnimada walaaltinimada isjacaylka ka sheekeeyo oo ka shaqeeya dadku hadday ku arkaan waxay ku odhanayaan allow labadii dhashay iyo macallinkii soo barbaariyeyba dembigiisu dhaaf jannadii geli. sidaasi awgeed ijcal man yaraaka yadcu liman rabbaaka. labadii ku dhashay iyo macallimiintaaduba duca u soo jiid. sabab u noqo in loo duceeyo adiguna sabab u noqo diinta islaamku sharafteeda. sabab u noqo waalidiintaadu inay kuu duceeyaan loona soo duceeyo. macallimiintaaduna sabab u noqo inay janno galaan loo soo duceeyo. adiguna cilmiga iyo tarbiyadda iyo edebta iyo sifooyinka fiican ka reeb. intaas baa ila wanaagsanaatay inaan kelmadayda maanta halkan macahad daari sunna aan ka sheego sida sharafta leh ee qiimaha iyo qaayaha badan la igu soo dhaweeyey. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.